iyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeega fiber optica iyo bartamaha Soomaaliya. khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. hase yeeshee waxa ay loo yareyn lahaa khasaarahaas, shirkadda gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas. annagoo ka faa'iidaysanayna fursaddan waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale ah inay dib u soo laaban. kow, in si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka, kaas oo qeexayo mas-uuliyadaha dhinac kasta. sharciga wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii ay heshiiska kula galeen. labo, shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xarigga looga ilaalin karo maraakiibta kusoo xiranaysa dekedda Muqdisho, taas oo u baahan inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrinkaas u quseeyo. saddex, shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay samaystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano backup, si haddii mid cillad ku timaado ay uga badbaadaan qadka kale. afar, waxaa ganacsatada lagu baraarujinayaa in ay dalka ka furan tahay fursad ganacsi oo ay ku maalgashan karaan xarko kale. baahida internetka ee sii kordhaysa iyo kalsoonida lagu qabo waxay muujinayaan in loo baahan yahay xarko kale. shan, wasaaradda waxa ay gacanta ku haysaa qorsho qaran oo ay qayb ka noqon doonaan dhammaan daneeyayaasha isgaarsiinta dalka, kaas oo damaanad qaadi doona helitaanka isgaarsiin tayo leh, la isku halayn karo, oo la awoodi karo, kuna baahsan dhammaan dalka oo dhan. wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda waxay ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed ugu mahadcelinaysaa dulqaadkii ay muujiyeen muddadii uu maqnaa qadka internetka. waxaan rajaynaynaa in haddii la fuliyo tallaabooyinkaas aan kor kusoo xusnay in laga gaashaaman doono inay soo noqdaan cilladan oo kale. waxaan kaloo aan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo xafiiskiisa oo si joogto ah noola shaqeynayay in hawshan dib loo soo celiyo. waxaan kaloo mahadcelinaynaa wasaaradda amniga oo ka qayb qaadatay sugitaanka markabka iyo injineerada iyo farsamayaqaanada saaran cillad bixinta qadka internetka ku mashquulsana inta biyaha Soomaaliya ku sugan yihiin. waxaan kaloo si gaara ugu mahadcelinayaa ciidanka ilaalada xeebaha oo noo fududay inaan isticmaalno doomahooda si loo gaarsiiyo ciidamada iyo qalabka kale loo baahan yahay markabka biyaha badda fadhiya loo gaarsiiyo. waxaan kaloo mahad gaar u celinaynaa wasaaradda dekedaha iyo maamulka dekedda gacantii ay ka geysteen in hawshaas cillad bixinteeda iyo fududeynteeda ha noqoto rugsadihii loo baahnaa o dhan in dekedda ay isticmaalaan iyo biyaha Soomaaliya. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada AMISOM oo runtii ayagana qayb lixaad ka qaaday ilaalinta shaqaalaha iyo markabkaas intii hawsha ay socotayna dul saarnaa gacan weyn ka geystay. waxaan kaloo ayadana rabaa in ugu dambeyntii u mahadceliyo shirkadda adeegaas oo gaarka loo leeyahay adeegaas bixisay oo habeen iyo maalin aan ka saaxanin in hawshaasi dib loogu celin lahaa
adeegaasna ummadda dib loogu soo celin lahaa ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhammaan anigu ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kan ra-iisul wasaarahaba aad iyo aad ayaan ugu xunnahay dhibaatada soo gaartay shacbiga soomaaliyeed ganacsatada iyo adeegyadii kale dowladda ay fidin jirtay waxaan ku dadaali doonaa insha allah haddii ilaa yidhaahdo in qorshe midaysan laga gaaro inaysan ciladan oo kale dib usoo noqonin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan furno su-aalo kooban oo weriyaasha inaan siino waxaan jeclaan lahaa inaan laga bixin mawduuca oo aan ku ogaano mawduuca maanta oo ah dib u soo celinta adeegii internetka oo muddo 3 toddobaad ah ka maqnaa bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waa mahadsantihiin waxaa sheegtay amaad ku qaaqday maalka